بيبت إسلام كقاطع ورآية إلهي ومقالة مريسا نقض يدنين عليهن من جلابيبهن أو كرسيغان كفرسا يدنين عليهن من جلابيبهن أو بصرا عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن أو فصل قليسة كصوب عيسى يدنين عليهن من جلابيبهن لقرسنايو وأخل كيدا الله سيك حينايو يدنين عليهن من جلابيبهن أو سوقا كأذيغن يسا نقض ولا ليال إن الله لا أنت كدراشان حجابك إلهي دنيهين كدرالا ساد السقا وسام بانارت الذين كقاوينيا ساد دينت الله النعظم بجنة إن النعيسى ساد عذابك ساد حمانت إيا فسقك إيا قاوناشا وجعلاتان يا إبليس يا شيطان إذن جعلانا يا هديك لك رسولك انت وحوك الضري وإليهين حقنا تدكيك إليا وركا ورما قبر زينة له أو روح له أنجل باب وذنن أفك الجدود مرصتي درع خفيفة كسعتا أم سروال إيا شاطي وضتا لا نيجا انتي كسو بعد الرقو سينقونيان ولا ليان سوما أركن تضبجر إني قدال إذن سو إيغيان سوما أركن إني إذن فيرينيان وما إلات وإليهين تدكين حقيك إليان والسببها النقنين الرقا إني عذاب قلاب والسبب النقض الرقو إني هنونان مر الله مرك جلباب كيدا إيا حجاب كيدا إيا هنان كيدا إيا طاعة اللي يكد ذا اللي يصلى أرقو يا ملائكتو كفرح ذا حسنات لوقرا ربي جعلا ذا شيطانكو كعررا لكن كوين ما أنت شيطان با صاحب لا والصاحب نمر الشيطان كقوية حريرك إلهي هجاجية سيدا درتين أي رسولكو انتا كدري وحد مودا مدحوذا رتيق قيلة إبادية هداق كرسكيسة وكالي أو إيلان والله إني جنة الله قلان اسكداي حتى عرفت إذا ما ينبو صلى الله عليه وسلم ما أقول بونجل بابا إني جنة الله قشداي حتى أذوق إذا ما يسو ما كان حجابا هو يدقيد وجهنم في حجابك هذا ويسا الله أتي سعري كل هذا في حجابك هذا ويسا وحقق الله قد يا عذاب من الله من حجابك هذا ويسا وحقق الله قد يا وريا يزرون يجيل الله سبحانه وتعالى واحد مرك إليه ويجودك عبيس شريابها لكن دمرك حاكمتها إن حقئي وناقل قدراله إن جيت إلهي تبني من لو آمنه إن رب سبحانه وتعالى لك عبصده خيرك إيا وناق إن آذي الله بصعده دمرك إن الله لا إنت حجابيهم بخيري وناق دويهن إلهي إنت مركو شاقي أيو يري يدنين عليهن من جلابيبهن waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollankeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dhegan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay taacada alle ku dadaal waad u jeedaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeedaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii muxamedun rasuulullah aadan ka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa
war xuquuqaadka alla idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gowmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad moodaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim yatawaaraa min alqawm min suu'in maa bushira bihi bannaanka ma soo baxaya waayo gabar baa loo dhalay wax idinkaga dandarnaa ma jiray wax idinkaga foolxumaa ma jiray walaalayaal aabbihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo aabbihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin hadduusan dadka akhyaartaa ag imaanaynin yatawaaraa waa dhuumanaya waa isqarinayaa xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikhu calaa hoon am yadussahu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunay dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa caradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala aabbe ayadoo lahu qabanaya markaasuu ku tuurayaa markaasuu godkii ku ridayaa sayxadeedii qayladeedii oo hinteeda la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tosho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag allaan la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac qafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keenta saacaddan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sano jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa illaah ilaahay ma ahan subxaana wa tacaala dembiguu noo cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu ghafuuran raxiim